ciidamo gaduudsan ayaa maanta hadheeyay afaafka hore ee aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho. ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa maanta xidhay afarta jiho ee laga soo galo aqalka dowladda hoose ee gobolka banaadir. ciidamadan oo ka tirsan ilaalada gobolka banaadir ayaa sameeyey gadood kadib markii ay sheegeen in ay waayeen xuquuqdii ay lahaayeen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. askarta qaar ayaa dhagaxaan ku jaray albaabada laga galo aqalka dowladda hoose waxayna diideen in laga galo ama laga soo baxo. sidoo kale ciidamada ayaa ishortaagay gaadiid ay wateen agaasimayaal gobolka ka tirsan iyo guddoomiyeyaal degmo. buuq iyo dood muddo taagneed kadib waxaa lagu guulaystay in la qaado ciidankii gadoodka sameeyey kuwaasi oo hadda ku sugan goobihii markii hore ay deganaayeen. qaar ka mida booliska soomaaliya ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay aysan qaadan wax mushaara waxaana marar badan laga soo xigtay iyaga oo ku doodayo in ay haysato mushaar la-aaniye taasi oo bilba ay bil u dhiibayso. waxayna arrintani muujinaysaa heerka booliska dalka soomaaliya uu taagan yahay marka la eego dhinaca dhaqaalaha. ilaa iyo hadda ma jirto madax ka tirsan dowladda oo ka hadashay arrintan ay sheegteen booliska ee ah in aysan qaadan wax mushaara mana jirto wax caddayn ah oo loo hayo arrintan ay boolisku u xidheen aqalka dowladda hoose ee ay ku macneeyeen in aysan mushaar qaadan balse dadka qaar ayaa ku macneeyey in maadaama oo duq cusub loo doortay meesha ay istusahayaan islamarkaasina ayna muujinhayaan dareen ah in xuquuqdooda la ilaaliyo mushaarkooda iyo baahiyahoodana wax laga qabto oo guddoomiyahan cusub iyo maamulkiisu ay indha gaara ku feeriyaan booliska sugahaya amniga aqalka dowladda hoose ee xamar. dagaal xoog leh ayaa habeennimadii xalay ahayd dhexmaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab waxa uuna ku dhexmaray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. al-shabaab ayaa wadada u galay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo marayay deegaan lagu magacaabo cumar dheere oo dhaca duleedka degmada afgooye. ciidamada ayaa la sheegay in ay ku wajahnaayeen deegaanka sabiibe ee isla gobolka shabeellada hoose kadibna ay weerar jidgal ah ku qaadeen dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab ee ka dhaqdhaqaaqda gudaha dalka soomaaliya. dagaal socday in ka badan saacad ayaa habeenkii xalay ahaa deegaankaasi ku dhex maray labada dhinac waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca walow aan ilaa iyo hadda si rasmiga loo xaqiijin karin tirada dhimashada ee halkaasi ka dhacday balse wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga qaranka ay heleen gurmada isla markaasina ay iyagu la wareegeen goobta dagaalka ayna jab gaadsiiyeen ururka weerarka soo qaaday. intii u socday dagaalka ayaa askar ka tirsan ciidamada dowladda waxa ay gurmad ahaan uga baxeen degmada afgooye waxayna halkaasi ka soo qaadeen askar ay waxyeelle ka soo gaartay dagaalka kuwaasi oo ay soo gaarsiiyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. al-shabaab ayaa dib ugu ruqaansaday ama u cararay deegaanka ay ku weerareen ciidamada dowladda kadib markii looga awood batay dagaalka habeenkii xalay ahaa ka dhacay deegaanka cumar dheere waxaana la sheegay in ay dib ugu laabteen deegaan lagu magacaabo bacaawa oo aan ka fogeyn deegaanka uu dagaalku ka dhacay kaas oo kolkii hore ay kasoo weerar tageen. weli ma jiraan wax war oo ka soo baxay dhinacyadii habeenkii xalay ahaa ku dagaalamay deegaankaasi ee ahaa al-shabaab iyo ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xoogga dalka oo sida aan xogta ku helnay weerar jidgal ah lagu qaaday xilli ay kusii jeedeen deegaanka sabiib ee gobolka shabeellada hoose. dhanka kale taliyaha ciidamada daraawiishta puntland sarreeya gaas yaasiin cumar dheere oo haatan ku sugan magaalada baran ee gobolka sanaag ayaa si kulul uga hadlay xiisad dagaal ee u dhaxaysa maamulkaasi iyo somalilan. taliya yaasiin dheere oo khudbad u jeediyey ciidamada puntland ee ku sugan halkaasi ayaa sheegay in gobolka uu ku jiro xaalad dagaal isla markaasina uu leeyahay cadow fara badan. gobolkan waad ogtihiin maanta cadow badan ayaa kusoo wajahan xaalad dagaal buu gobolku ku sugan yahay nin looga keenayo ma jiro ayuu yiri taliyaha ciidanka daraawiishta puntland. sidoo kale wuxuu tilmaamay in degmada barane ay kusoo wajahan yihiin ciidamada somalilan iyo al-shabaab oo wada socda sida uu hadalka u dhigay taliyahaasi. ciidanka gobolkaasi waqooyi ka taliya waxay soo wadaan
al-shabaab oo ay labadooduba wada socdaan waxay kusoo wajahan yihiin deegaankan ayuuna intaasi sii raaciyey taliyuhu. ugu dambeyn wuxuu carabka ku dhuftay in puntland aysan weerar ahayn isla markaasina ay iska difaaci doonto cid kasta oo duulaana kusoo qaada deegaanadeeda. inta badan madaxda somalilan iyo puntland ayaa dhanka warbaahinta isu mariya eedeymo culculus kuwaasi oo marar badan ciidamadoodu ay ku dagaalameen gobolada sool iyo sanaaga ee waqooyiga soomaaliya. dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa goobjoog ka noqday saxiixa heshiis nabadeed oo ay gaareen bulshada ku nool degmada xeeraale iyo huurshe ee gobolka galguduud. ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo u mahad celiyey dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay in lagu guuleysto dhammaynta colaada dhiigga badani ku daatay iyo saxiixa heshiiska boga iyo nolosha cusub abuuraya ayaa bulshada huurshe iyo xeeraale kula dardaarmay in ay ilaaliyaan oo dib loogu laaban colaadii lagana barto casharo nololeed. heshiiska dhex maray bulshada xeraale iyo huurshe ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay in uu taariikhda dalka baaldahab ah ka galayo waxa uuna bulshada galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in ay uga daydaan geesinimada lagu dhammaynhayo colaadaha deegaan kasta oo colaad ay ka jirto lana soo afjaro nabadna la qaato si horumar loo gaadho. odayaasha labada dhinac ayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre uga mahad celiyey dadaaladiisii hagar la-aaneed ee ugu dambeyn sababay in reer xeraale iyo huurshe ay wada saxiixaan heshiiska nabadeed oo bilow u ah nolol iyo iftiin cusub oo ay ku wada noolaadaan dad walaalo ah oo ku kala irdhoobay colaada sokeeye. ra-iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay qaadanayso doorka ugu aadan hirgelinta qodobada heshiiska nabadeed ee wadajirka ay qalinka ugu dugaan reer huurshe iyo reer xeraale. ciidamo gaduudsan ayaa maanta hadheeyey afaafka hore ee aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho. ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa maanta xidhay afarta jiho ee laga soo galo aqalka dowladda hoose ee gobolka banaadir. ciidamadan oo ka tirsan ilaalada gobolka banaadir ayaa sameeyey gadood kadib markii ay sheegeen in ay waayeen xuquuqdii ay lahaayeen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. askarta qaar ayaa dhagaxaan ku jaray albaabada laga galo aqalka dowladda hoose waxayna diideen in laga galo ama laga soo baxo. sidoo kale ciidamada ayaa ishortaagay gaadiid ay wateen agaasimayaal gobolka ka tirsan iyo guddoomiyeyaal degmo. buuq iyo dood muddo taagneed kadib waxaa lagu guulaystay in la qaado ciidankii gadoodka sameeyey kuwaasi oo hadda ku sugan goobihii markii hore ay deganaayeen. qaar ka mida booliska soomaaliya ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay aysan qaadan wax mushaara waxaana marar badan laga soo xigtay iyaga oo ku doodayo in ay haysato mushaar la-aaniye taasi oo bilba ay bil u dhiibayso. waxayna arrintani muujinaysaa heerka booliska dalka soomaaliya uu taagan yahay marka la eego dhinaca dhaqaalaha. ilaa iyo hadda ma jirto madax ka tirsan dowladda oo ka hadashay arrintan ay sheegteen booliska ee ah in aysan qaadan wax mushaara mana jirto wax caddayn ah oo loo hayo arrintan ay boolisku u xidheen aqalka dowladda hoose ee ay ku macneeyeen in aysan mushaar qaadan balse dadka qaar ayaa ku macneeyey in maadaama oo duq cusub loo doortay meesha ay istusahayaan islamarkaasina ayna muujinhayaan dareen ah in xuquuqdooda la ilaaliyo mushaarkooda iyo baahiyahoodana wax laga qabto oo guddoomiyahan cusub iyo maamulkiisu ay indha gaara ku feeriyaan booliska sugahaya amniga aqalka dowladda hoose ee xamar. dagaal xoog leh ayaa habeennimadii xalay ahayd dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab waxa uuna ku dhex maray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. al-shabaab ayaa wadada u galay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo marayay deegaan lagu magacaabo cumar dheere oo dhaca duleedka degmada afgooye. ciidamada ayaa la sheegay in ay ku wajahnaayeen deegaanka sabiibe ee isla gobolka shabeellada hoose kadibna ay weerar jidgal ah ku qaadeen dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab ee ka dhaqdhaqaaqda gudaha dalka soomaaliya. dagaal socday in ka badan saacad ayaa habeenkii xalay ahaa deegaankaasi ku dhex maray labada dhinac waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca walow aan ilaa iyo hadda si rasmiga loo xaqiijin karin tirada dhimashada ee halkaasi ka dhacday balse wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga qaranka ay heleen gurmada isla markaasina ay iyagu la wareegeen goobta dagaalka ayna jab gaadsiiyeen ururka weerarka soo qaaday. intii u socday dagaalka ayaa askar ka tirsan ciidamada dowladda waxa ay gurmad ahaan
ahaan uga baxeen degmada Afgooye waxayna halkaasi ka soo qaadeen askar ay waxyeello ka soo gaartay dagaalka kuwaasi oo ay soo gaarsiiyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Al-shabaab ayaa dib ugu ruqansaday ama u cararay deegaanka ay ku weerareen ciidamada dowladda kadib markii looga awood batay dagaalka habeenkii xalay ahaa ka dhacay deegaanka Cumar Dheere, waxaana la sheegay in ay dib ugu laabteen deegaan lagu magacaabo Bacaawa oo aan ka fogeyn deegaanka uu dagaalku ka dhacay, kaas oo kolkii hore ay kasoo weerar tageen. weli ma jiraan wax war oo ka soo baxay dhinacyadii habeenkii xalay ahaa ku dagaalamay deegaankaasi ee ahaa al-shabaab iyo ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xoogga dalka oo sida aan xogta ku helnay weerar jidgal ah lagu qaaday xilli ay kusii jeedeen deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellada Hoose. dhanka kale taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland sarreeya gaas Yaasiin Cumar Dheere oo haatan ku sugan magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa si kulul uga hadlay xiisad dagaal ee u dhaxaysa maamulkaasi iyo Somaliland. Taliya Yaasiin Dheere oo khudbad u jeediyay ciidamada Puntland ee ku sugan halkaasi ayaa sheegay in gobolka uu ku jiro xaalad dagaal isla markaasina uu leeyahay cadow fara badan. gobolkan waad ogtihiin maanta cadow badan ayaa ku soo wajahan xaalad dagaal buu gobolku ku sugan yahay, nin looga sheekeynayo ma jiro ayuu yiri taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland. sidoo kale wuxuu tilmaamay in degmada Baran ay ku soo wajahan yihiin ciidamada Somaliland iyo al-shabaab oo wada socda sida uu hadalka u dhigay taliyahaasi. ciidanka gobolkaasi waqooyi ka taliya waxay soo wadaan al-shabaab oo ay labadooduba wada socdaan, waxay ku soo wajahan yihiin deegaankan ayuuna intaasi sii raaciyay taliyuhu. ugu dambeyn wuxuu carabka ku dhuftay in Puntland aysan weerar ahayn isla markaasina ay iska difaaci doonto cid kasta oo duulaana ku soo qaada deegaanadeeda. inta badan madaxda Somaliland iyo Puntland ayaa dhanka warbaahinta isu mariya eedeymo culculus kuwaasi oo marar badan ciidamadoodu ay ku dagaalameen gobolada Sool iyo Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa goobjoog ka noqday saxiixa heshiis nabadeed oo ay gaareen bulshada ku nool degmada Xeeraale iyo Huurshe ee gobolka Galguduud. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo u mahad celiyay dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay in lagu guuleysto dhammaynta colaadda dhiigga badani ku daatay iyo saxiixa heshiiska boga iyo nolosha cusub abuuraya ayaa bulshada Huurshe iyo Xeeraale kula dardaarmay in ay ilaaliyaan oo dib loogu laaban colaadii lagana barto casharo nololeed. heshiiska dhex maray bulshada Xeeraale iyo Huurshe ayuu ra'iisul wasaaruhu sheegay in uu taariikhda dalka baal dahab ah ka galayo, waxa uuna bulshada Galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay uga daydaan geesinimada lagu dhammaynayo colaadaha deegaan kasta oo colaad ay ka jirto lana soo afjaro nabadna la qaato si horumar loo gaadho. odayaasha labada dhinac ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uga mahad celiyay dadaaladiisii hagar la'aaneed ee ugu dambeyn sababay in reer Xeeraale iyo Huurshe ay wada saxiixaan heshiiska nabadeed oo bilow u ah nolol iyo iftiin cusub oo ay ku wada noolaadaan dad walaalo ah oo ku kala irdhoobay colaado sokeeye. ra'iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay qaadanayso doorka ugu aadan hirgelinta qodobada heshiiska nabadeed ee wadajirka ay qalinka ugu dugaan reer Huurshe iyo reer Xeeraale.